بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد walaalayaal dhammaan dadka muslimiinta meel walba aad joogtaan waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. salaam kadib waa barnaamijkeenii aafaaq ahaa oo aan qur-aanka kariimka ah maalinba suurad ku tadabburi jirnay dul istaagi jirnay. maanta insha allah xalaqadeennan waa xalaqadii aan dul istaagi lahayn suuratu lmaa-ida, waana xalaqadii lixaad. suuratu lmaa-ida waxay ku jirtaa suuradaha dhaadheera qur-aanka ah, waxayna ku xigtaa suuratu nisaa. waana suurad nabiga sal alla alay slam hijradii kadib kusoo degtay oo waxay ka mid tahay suuradaha madaniga loo yaqaan. horaan usoo sheegnay qur-aanka kariimka in suuradihiisa 114 aana qeybna maki la dhaho qeybna madani la dhaho. kuwa makiga la yiraahdo waa hijradii nabiga sala allahu alay wasalam ka hor qur-aankii soo degay. suuradaha madaniga ahna waa suuradaha markii nabiga sal ly slam uu madiine u hijrooday kadib soo degay. hadday rabaan nabiga sal ly slam magaalo kale ha joogo oo waxaa laga yaaba asagoo markaa maka jooga inay aayadda qur-aanka soo degtay, laakiin waa hijradii kadib. sidaasaa jamhuurta u badan tahay in suuradaha noocaasa madani la yiraahdo. suuratu lmaa-ida marka waa suuradaha qur-aanka ee madiine kusoo degay, weliba waxay ka mid tahay suwarka qur-aanka kuwii ugu sii dambeeyey. waxaa laga wariyay athar caaisha radia allahu canha saxaabi ay ku tiri suuratu lmaa-ida waxay ka mid tahay suuradaha qur-aanka kuwii ugu dambeeyey oo soo degay. markaase waxay tiri famaa wajadtum fiiha min xalaalin faaxilluuh. wax kasta oo xalaal ah oo suuraddaa ku jira xalaashada, wixii xaaraan ah suuraddaas ku dhex jirana xaaraam ka dhigo, ha u dhowaanina. marka waxay ka mid ahayd suuradaha qur-aanka kariimka ugu dambeeyey xagga soo dega. culimmada waxay yidhahdaan suuratu lmaa-ida hal mar bay soo wada degtay. culumaa tirahda mufasiriinta, laakiin sida saxda waxaa weeye in suuratu lmaa-ida waqtiyo kala duwan ay soo degtay. markaa aayaadkeeda usii dhabagashid oo fiirisid munaasabaad iyo waqtiyo kala duwan bay soo degtay. waxaa ku jira aayado soo degay dagaalkii beder ka hor weliba, siba aayaddan ah ma aragtay nabi muuse calayhi salaam iyo qoomkiisii markay isla hadlaayeen ay ku yidhaahdeen yaa muusa inaa lan nadkhulaha abadan maadaamuu fiiha fadhab anta warabuka faqaatilaa inaa haahunaa qaaciduun. waa tii saxaabigii marka miqdaad ibn alaswad nabiga sal ly slam ku yidhi yaa rasuul allah dagaalka beder ka qeyb gal, adiga iyo ilaahay iyo annagaba waa kula dagaalamayna. waa tii yidhahdeen. waxaa ku jira aayado soo degay ghaswadii muraysiic, waxaa ka mid a aayado soo degay sulxu lxudaybiya iyo aayado soo degay xajat lwadaac, sida aayadda ah alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina. waxay soo degtay carafa maalintii nabiga sal ly slm uu taagnaa. nabiga sal ly slm geeridiisana ay ka dhineyd 80 iyo maalin ama 82 maalmood geeridiisa ay ka dhineyd salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh. marka waa suurad soo degtay waqtiyo kala duwan iyo munaasabaad kala duwan xilliga nabiga sal ly slm madiine uu deganaa. suuraddan waxaa loo yaqaanaa suuratu lmaa-ida. kelmaddaas maa-ida waa weelka ama saxanka ama miiska cuntada lagu cuno. maa-ida qur-aanka kariimka ah suuraddan keliya bay ku soo aroortay almaa-ida. markay lahaayeen xawaariyiintii ama asxaabtii nabi ciise hal yastatiicu rabuka an yunazila calayna maa-idata min asamaa. maa-ida marka maadaama ay suuraddan kusoo aroortay ilaahi subxana wa tacaala magacaas ugu magac daray, qur-aanka meel kale kagama jirto. culimmada mu'arikhiinta ah ahlu siyarna waxay yidhahdaan xataa kitaabka injiil qisadaas loogama sheekeenay. waxaalaha marka wuxuu la mid yahay qur-aanka kariimka uu la keliyoobay qisadaas maa-ida la yidhaahdo. magacyo kale ma loo yaqaanaa? ahlulcilmiga waxay yidhahdaan waxaa kaloo loo yaqaanaa suurat alcuquud, suuradda heshiisyada, alcuquud agreementiga ama heshiiska. maadaama aayadda ugu horeysaba ilaahi subxana wa tacaala uu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud, fuliya heshiisyada. culimo kale waxay yidhahdaan suuratu alxalaali walxaraam. marka waa suurad qur-aan ah oo qur-aanka kariimka ka hadlaysa heshiisyada xalaasha ah
waxyaalaha xaaraamta ah oo nolosha kala duwan bay ka sheekeynaysaa suuradda. suuradda marka waa 120 aayadood, kulligeed waxay ku wareegaysaa oo hadaf guud u ah in heshiiska laga soo baxo, in agreementiyada laga soo baxo, heshiiska qofka biniaadanka uu la galo ilaahay subxana wa tacaala uu la galay, ama aadanaha uu la galay, ama adiga naftaada aad la gashid, ama xaaskaaga aad la gashid, ama dowladdaada aad la gashid, haddaad tahay qof caadi ah oo shacaba ama qof madaxweyne ah. heshiisyada nolosha oo kala duwan oo dhan in la fuliyo bay aayaddaanu suuraddaanu hadaf ka dhigata caama. qadiyado kaleeto iyo canaawiin ama mawaadiic kale oo badan baa hoos imaanaya suuradda, kulli waxay u khidmeynaysaa, u shaqaynaysaa hadafka guud oo ah awfuu bilcuquud, heshiisyada ha la fuliyo. suuradda marka ilahi subxana wa tacaala wuxuu ku bilaabay yaa ayuha aladiina aamanuu, waana suuradda keliya oo qur-aanka kariimka ah lagu bilaabo aayaddaas oo kale, yaa ayuha aladiina aamanuu. qur-aanka su u dhan yahay suuraddaana jirta oo keliya oo ilahi subxana wa tacaala uu kula hadlayo dadka mu'miniinta ah. isla suuradda dhexdeedana yaa ayuha aladiina aamanuu ilahi subxana wa tacaala wuxuu kusoo celceliyey 16 jeer yaa ayuha aladiina aamanuu. suurat lbaqara oo ka dheer oo 2 juz iyo bar meelahaasa ilahi subxana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu wuxuu kusoo celceliyey 11 jeer. taa marka waxay kutusaysaa khitaabka ilaahi subxaana wa tacaala iyo hadalka ilahi subxana wa tacaala uu mu'miniinta u waajiheeyey oo u soo jeediyey inay muhiim tahay. waatuu marka cabdullahi bnu mascuud uu lahaa ahartii laga wariyey xadiidkii uu yidhi haddaad qur-aanka kariimkaa ku maqashaan yaa ayuha aladiina aamanuu, war kuwa ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa rumeeyow, war kuwa iimaanka buuxa laga helayo, haddaad qur-aanka ku maqashaan dhegta raariciya, dhegta taagta buu dhihi jira cabdullahi bnu mascuud. lianna ama waxaa lagu farayaa amar, wax adiga dan ay kugu jirtaa lagu farayaa, ama waxaa lagaa joojinayaa laguu diidayaa wax dhibaata ama wax xumaata ay ku jirto, dantaada wax ah baa laga hadlaya marka ilaahi subxana wa tacaala uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu. suuraddaa marka ilaahi subxaana wa tacaala 16 jeer buu yaa ayuha aladiina aamanuu kusoo celceliyey. waxaa marka halkaas aan kala baxaynaa mar kastoo ilahi subxana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu uu yidhaahdo mixwar cusub, qadiyad cusub ama qiso cusub buu ilahi subxana wa tacaala bilaabaya. ilahi subxana wa tacaala marka wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud, yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxiluu shacaa'ir allah, yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati, yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiin, yaa ayuha aladiina aamanuu idkuruu nicmat allahi calaykum, yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha wabtaguu ilayhi alwasiila, yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa, yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi, yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu aladiina ittakhaduu diinakum huzuwan walaciba, yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu طayibaati ma axala allahu lakum, yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu, yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum allahu bishayin min alsayd, yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda, yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida اhtadaytum, yaa ayuha aladiina aamanuu idaa xadara axadakum almowt. 16 jeer buu ilahi subxana wa tacala yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina aamanuu. mar walba marka yaa ayuha aladiina aamanuu kaa hor timaado mowduuc cusub, cinwaan cusub ama qiso cusub ama xukun cusub baa soo socda oo lagaala hadlaya. dhegtaa marka u taagaysa ama waxbaa lagu amraya ama waxbaa lagaa nahyinaya, laguu diidaya. waxaalaha kaloo suuraddan ay cajiibka la tahay suuratu lmaa-ida, suwarka qur-aanka isagoo wada cajiib lahoo yaab lahoo fadli badan leh, haddana waxalooyin oo khaasa bay leedahay suuratu lmaa-ida. suuratu lmaa-ida waxaalaha la keliyooda waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala 19 xukun buu keligeed kaga hadlay oo qur-aanka intiisa kale aadan ka dhexelaynin. waxaalaha ay goonida la tahay wey. waa tii aharka xadiidka uu ahaa qur-aanka suuratu lmaa-ida akhriya, weliba maaragtay ku celceliya. qofka muslimka waxay dhisaysaa xukunkiisa iyo dhaqanka iyo inuu ballamaha ka soo baxo. waa tii ahar kalena ay lahayd raggiina waxaa bartaan suuratu lmaa-ida, dumarkana waxaa bartaan suuratu nuur. mid walba marka waxaa ku badan axkaam looga baahan yahay nooca
ragga oo kale axkaam looga baahan yaho tiro badan baa ku jirta suuratu maa'ida 19 xukun waxaa ka mid ah xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu alkhinziiri wamaa uhila ligayri illaahi bihi walmunkhaniqatu walmawquudatu xayawaanaadka ilaahay subxaana wa tacaala uu xaaraamta ka dhigay in la cuno oo ay ka mid tahay xayawaanka buur laga soo tuuray ama xayawaanka la ceejiyey oo dhintay ama ay ka mid tahay xayawaan lagu dilay ul ama ay ka mid tahay xayawaanaad noocaas waxaa la mid ah ilaahi subxana wa tacaala markuu xalaaleeyey in ahlu kitaabka gabdhahooda la guursan karo gabdhaha kirishtanka ah iyo gabdhaha yahuudda ah waa la guursan karaa buu yidhi ilaahi subxaana wa tacaala hal shardi bay leeyihiin hadday yihiin dad dhoorsoon cafiifaad hadday yihiin sida gabadha muslimka ahba marka aad guursanaysid ay shardi tahay inay tahay gabar dhoorsoon oo cifa iyo xishood leh wati marka ilahi subxana wa tacaala uu yidhi والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين يعني قبلها أهل كتاب كأه أو يهود أما كريستان كأه وقورسان كرتاديهن محصنين قبل الدورسون وأهل عفاء وأن لغو أقون لقنحون إيا ما أردت قول الله في أن لغو أقون وحلم إذا حد الحرابة أما حد الحرابة qofka hadduu burcad noqdo oo dadka jidka u galo ama burcad badeed noqdo ama ma aragta dadka uu qutaacu ariiq uu noqdo dadka maaragta uu laayo xukun noocee laga maaragtay lagu oofinayo waxaa la mid ah xukunka sariqada qofka hadduu wax dhaco oo waxado sidee loo xukumayo waxaa la mid ah dardaaranka qofka markuu geeriyoodo ama geeridiisa ay soo dhowdahay inuu dardaaran uu sameeyo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa xadara axadakum almowt حين الوصية 2 ذوى عدل منكم waxaa la mid ah axkaamta ugaarta يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم أحكام 19 xukun suu imaam الqurطبي uu sheegay raximah الlah kitaabkiisa tafsiirka ah 19 xukun bay suuraة الmaa'ida la keliyowday marka runtii waa suurad cajiiba suuraة الmaa'ida oo u baahan in si gooniya loo diraaseeyo si gooniya loo akhriyo axkaamta ku jirta xikamka ku jirta fadaaisha ku jirta xalaasha iyo xaaraamta ku jirta in la diraaseeyo waayo nolosheenna oo dhan baa ku wareegaysa waxaan soo sheegnay marka hadafka guuda suuradda inay tahay suurat alcuquud suuradda heshiisyada ka hadlaysa ama suurat alxalaali walxaraam waxay ka sheekeynaysaa cuntada maxaa xalaala maxaa xaaraana cabitaanka maxaa cuntaa maxaa xaaraana maxaa xalaala guurka maxaa xalaala maxaa xaaraana waxay ka sheekeynaysaa dhaarta qofka markuu wax ku dhaarto waxay ka sheekeynaysaa kafaaraadka waxay ka sheekeynaysaa cibaadaadka waxay ka sheekeynaysaa xukunka in xukunka laisku xukumo xukunka ilahi laisku xukumo waxay ka sheekeynaysaa markhaatiga in markhaati dadka la geliyo cadaaladda oo la sugo waxay ka sheekeynaysaa qadaaga iyo maxkamadaha wahaluma jara waxaa ku jira marka axkaam aada u tiro badan oo xalaal iyo xaaraanba leh oo qofka mu'minka la rabo inuu si fiican u diraaseeyo waxaalaha marka ilaahi subxana wa tacaala uu suuradda ku bilaabay yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud waxaan kasoo sheekeynayna suuradaha hore suurad kasta suuradda ka horeysa cilaaqa la leeda waxaa ka dhexeeya taraabud iyo linki baa ka dhexeeya xiriir baa ka dhexeeya suurat lmaa-ida hadda suurat nisaa baa ka horeysa ilahi subxana wa tacaala suurat nisaa wuxuu kula hadlay aadanahaasay u dhanyihiin yaa ayuha annaas bilaadanow suurat lmaa-idana ilahi subxana wa tacaala si gooni ah buu muminiinta ula hadlay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahi subxaana wa tacaala rumeeyey buu ilahi subxana wataala si hoose ula hadlay suurat nisaa ilahi subxana wa tacaala xukun badan iyo axkaam buu kaga soo hadlay wuxuu kasoo sheekeeyey dhaxalka wuxuu kasoo sheekeeyey agoonta iyo axkaamtooda wuxuu kasoo sheekeeyey in dumarka loo naxariisto wuxuu kasoo hadlay guurka wuxuu kasoo hadlay dadka aqaliyaadka oo mujtamaca minority ku hadlay sidii loola tacaamulo axkaam badan buu ilahay kaga soo sheekeeyey suuradda marka ilahi muxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud oofiya oo fuliya oo la imaada heshiiska ilaahi subxaana wa tacaala aa la gasheen iyo axkaamtii tirada badneed oo suurat nisaa lagaga soo sheekeeyey suuratu nisa markay dhamaatay yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud heshiisyadii iyo axkaamtii lagaga soo hadlay suuratu nisaa
fuliya. waa raabit iyo cilaaqo iyo xarig isku haya suuratu nisa iyo suuratu lmaa-ida. suuratu nisa waxaa ku jiray ilaahi subxaana wa tacaala inuu khamrada xaaraan ka dhigay waqtiyada salaada. yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الصalaata wa antum sukaara, ha tukanina idinkoo sakhraansan khamro soo cabe. suuratu lmaa-ida ilahi subxana wa tacaala wuxuu ku keenay xaaraan ayadoo laga dhigay khamradii salaad ku jir ama ha ku jirin ama cibaadeyso ama ha cibaadeysanba, khamrada asal ahaan bay xaaraan u tahay. yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlazlaamu rijisu min camali الshayطaani fajtanibuuh. waxaa kaloo ku jira suuratu nisaa axkaamta tahaarada oo si kooban looga soo sheekeeyey. wain kuntum junuban faطaharu. suuratu lmaa-idana waxaa looga sheekeeyey ayadoo mufasala oo la dhiiteelgareeyey oo la fahfahiyey. yaa ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ila الصalaati fagsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu yani tahaarada weysada sida loo qubaysto iyo sida janaabada looga qubaysto layskaga tahiro oo faahfaahsan buu ilah subxana wa tacala suuratu lmaa-ida uga sheekeeyey. suuratu nisaa ilahi subxaana wa tacaala wuxuu si dheer uga hadlay oo uula hadlay dadka ahlu kitaabka ah siiba yahuudda. suuratu lmaa-idana ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu si dheer ula sheekeynaya uga hadlayaa ahlu kitaabka siiba dadka kristanka ah oo nasaarada ah. suuraddii horena maxay xooga saartay yahuudda, suuradda dambena maxay xooga saartay ahlu kitaabka weliba kristanka ah oo nabi ciise loo soo diray. sababtuna waxay tahay suuratu lmaa-ida waxay soo degtay waqti dambe oo awooddii yahuudda ay wiiqantay ama ay yaraatay. madiina waxaa deganaa carab, ansaar baa deganeed, yahuudna way deganaayeen. weliba xoog waxaa ku lahaa madiina yahuudda xoog ku lahaa, yahuuddii bani nadiir iyo bani qurayda iyo bani qaynuqaac. ayagaa waxay u maamulayeen magaalada madiina, waxay u maamulayeen thaqaafo ahaan cultureka, waxay maamulayeen dhaqanka, waxay maamulayeen aqoonta, waxay gacanta ku hayeen dhaqaalaha iyo ganacsiga. suuqyada madiine ku yaalay haaf ama haaf ka badanba waxaa maamulaya yahuudda. waxay maamulayeen ceelasha bi'rigii weynaayo oo cuthmaan bin cafaan uu gadi jiray waxaa iska lahaa yahuud. waxay maamulayeen dhaqanka saan soo sheegnay, ilaa dad waxaa ahlu kitaaba oo kitaabkii nabi muuse calayhi salaam oo towraada bay xambaarsanaayeen, aqoon bay lahaayeen meesha ansaar iyo carabta kale aqoon aysan lahayn. marka dad waxay ahaayeen kontroolaya magaalada madiino. nabiga sala allahu alay slam marka madiine markuu yimid wadci noocaas ahaa ka taagnaa, yahuudda xoog gacanta ku haysay magaalada madiino. khitaabkii marka soo degayay qur-aanka kariimka ah xiliyadii ay madiino xooga ku lahaayeen ama ku xoog badnaayeen yahuudda, wuxuu la khitaabayay dadka yahuudda ah sida loola tacaamulayo, sida loola noolaanayo bay ka sheekeynayseen. sanadkii 6aad sanadkii 7aad oo yahuuddu ay ka guureen madiino oo dagaalkii khaybar u dhacay oo ay ka guureen magaaladii khaybar, waxaa soo dalkii kristanka ahaa. wataan ka soo sheekeyna xalaqadii afraad oo aalu cimraan aan kaga soo sheekeyna wafdigii reer najraan oo kristanka ahaa iyo wufuud kaloo tiro badan oo nabiga sal ly slm u imaanayo dad kristan ay ahaayeen. suuratu lmaa-ida marka waxay xoogga saareysaa dadkii kristanka ahaa oo waagaa jooray, leanna qur-aanka kariimka ah waxaan sheegnay inuu ilaahi subxaana wa tacaala uu usoo dejiyey qaab mufaraqa oo kala qeybsan. hal mar lama soo dejinin qur-aanka isagoo munajam ah. qur-aanka waqtiyo kala duwan buu soo degay si hadba xaaladda taagan ama wadciga jira ama munaasabadda jirta qur-aanka uu ula tacaalo. ilahi subxana wa tacala wuxuu yihi waqur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa mukthin. ilah subxana wa tacala ayad kale muxuu ku yidhi kadalika linuthabita bihi fu'aadaka warattalnaahu tartiila. maxaa qur-aanka si kala duwan loogu soo dejiyey? sidii gaalada bay codsadeen, waxay yidhahdeen qur-aanka ma hal mar lasoo wada dejiyo. ilaahi subxana wa tacaala wuxuu yihi si qalbigaagana loogu xasiliyo dadkana aada ugu akhrisid baan kugu soo dejinay. qur-aanka marka kariimka ah annagaana loo soo dejiyey, nolosheenaa loo soo dejiyey, maciishadeenaa loo soo dejiyey. qur-aanka annaguu nala tacaalaya, annaguu nala hadlayaa. waatay culimmadu markay dhihi jireen qofkii jeclaaday inuu ilaahi subxaana wa tacaala la hadla qur-aanka kariimka ha akhriyo. qur-aanka kariimka marka waa manhaj xayaat noloshaada markaa dhalatid ilaa aad ka dhimatid qur-aanka kariimka wuu kula soconaya.
runtii markaa qur-aanka akhrisidna waxaa dareemaysaa inuu yahay rasaa'il iyo maasijiyo waraaqo ilaahay subxana wa tacaala adiga uu kugula hadlayo qalbigaaga sidaasaa ka dareemaysaa qur-aanka marka waxaa loo baahan yahay in nolosheenna uu la fangalo oo la socdo noloshaasi u dhan tahay soo jeedkaaga hurdadaada la tacaamulkaaga bilaadanka saa ula dhaqmaysa ilah subxana wataala ula xiriiraysa cibaadaadkaaga caqiidadaada akhlaaqiyaadkaaga dhaqankaaga qur-aanka kariimka aduu kuu socdaa waana hadafka aan ka leenahay barnaamijkan aan u bixina aafaaq in qur-aanka kariimka aan la noolaano marka suurat lmaa-ida kiristankay xoogga saartay ilahi subxana wa tacala marka wuxuu ku bilaabay ya ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud uxilat lakum bahiimat lancaam heshiisyada fuliya heshiisna waxaa ugu weyn waa midka adiga iyo ilahi subxana wa tacala aad la gasha waa markaa tiri ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah ilaahay mooy iyo ilaahay kalama jiro waa agreement waa heshiis waa caqdi ilah baa subxaana wa tacala la gasha waxaa looga baahaya marka heshiiska ilaah aad la gashay inaad ka soo baxdid oo adduunka aad ugu noolaatid siduu ilaah subxana wa tacaala uu u dejiyey waxaa ku xiga heshiisyada midka adiga naftaada aad ka qaadid midka ciyaalkaaga iyo xaaskaaga aad la gashid midka madaxweynahaaga aad la gashid walidaalika xukunka ama siyaasadda madaxweynaha iyo shacabka waa agreement ay wada galeen ma ahan xukunku mid dhaxal lagu helo ma ahan cunugeyga maadaama anigu aan dhalay cunugeyga uu yahay isagaa ummadda dhexlaya ama boqor u noqonaya ama xoog baan ku qabsanaya ma ahan xukunka iyo siyaasaddu waa tacaaqud ama taraadin iyo heshiis walidalika culimadu waxay yihahdaan maamulka ama siyaasaddu waa bitaraadi in heshiis la iskaga yahay tacaaqud wey marka agreement ay wada galayaan shacabka iyo madaxweynaha walidalika imaamu shawkani raximah llah waatuu baab uga dhigay in qofka madaxweynaha xukunkiisa loo mudayo waqti loo qabto waxay ku xiran tahay asaga iyo shacabkiisa say u wada heshiiyaan haddii lagu heshiiye madaxweynaha inuu 4 sano maamulo waa agreement ma ku darsan kartid sanad kale haddii lagugula heshiiyo 10 sano ma ku darsan kartid sanado kale haddii lagu wada heshiiyo nidaam oo adiga lagugu ilaalinayo muraaqabadaada ah haddii lagu heshiiyo bayjeega aa qaadanaysid lacagta aa qaadanaysid nidaamkii lagugu casili lahaa nidaamkii lagugu muxaasabeyn lahaa ay baarlamaanka wada dejiyaan shacabkan ay ku heshiiyaan waana ka soo baxdaa agreementiga waxaa ka mid a midka adiga iyo dadka ganacsatada aad la gashaan waxaa la mid a midka adiga iyo dowladda aad la gashid mararka qaarkood waxaa laga yaaba qofka inuu is yiraahdo dowladdan dowlad islaama ma aha heshiisku marka aan la galo waa jebin kara ama waa xadaya ama waa la jiifiyaana bannaan waxbaan qaloocinaya ma ahan dowladda haddaad ay tahay dowlad muslin ah iyo haddaysan dowlad muslina aysan ahayn adiga aa la nooshahay heshiiska waa inaa mar walba ka soo baxdaa waxaa laga yaabaa dowladda inay ku siisay laysan waxay ku siisay food stamp waxay ku siisay cunto waxay ku siisay caafimaad waxay ku siisay dowladdii laysano yani ganacsi bay kuu furtay waxaas dhan waa wada heshiis aad dowladdii la gashay yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud heshiiska waa inaa ka soo baxdaa ama ilaahay la gal ama aadana kale la gal ama qof musliman la gal ama qof aan muslim ahayn la gal awfuu bilcuquud ilahay marka wuxuu ku xujisiiyey cuntada iyo cuntada maxaa xalaala uxilat lakum bahiimat lancaami ilaa maa yutla calaykum ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xalaal ka dhigay xoolaha geela ariga lo-da kulli ilahi subxana wa tacala wuxuu ka wada dhigay xalaal xalaasha aada u tiro badan maxaa marka la diidayaa wax ilahi subxana wa tacaala xalaal uu ka dhigay in adiga aa xaaraam ka dhigtay alla marka wuxuu yidhi ilaa maa yutla calaykum inta laydiin ka reebi doona maahane maxaa lanaga reebay laxmul khinsiirka dhiigga neefkii loo gowraco ilaahi subxana wa tacaala dartiis ba qof kale loo gowraco ama ma aragtay magac kaleeto lagu gowraco wamaa uhila ligayr illahi bih neefkii dhuunta xarig looga xiray saas ku dhintay neefkii ul lagu dilay neefkii buur laga soo tuuray ma aragtay wad adugu والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم نايفكي عني دروا أما يي عنتي waxaas dhan lama cuni karo ilaa maa dakaytum imaam alqurtubi wuxuu leeyahy waa wixii asagoo naf ku jirto inta laga daba tegay ama indhaha maaragtay dhaqdhaqaajinaya ama saynta dhaqdhaqaajinaya ama ordaaya
asagoo nafla caari ah haddaa ugu tagtaan gowraca inta bisinka u qabataan cuna markaas waa xalaal. kadib ilaahi subxana wa tacaala wuxuu ku xujisiiyey ataayib azawaaj, guurka iyo gabdhaha la guursado oo ayibka oon wanaagsan. alla wuxuu yidhi yas'aluunaka maada uxila lahum qul uxila lakum atayibaatu, wax walba oo wanaagsan ba xalaal idinkaga dhigay. wamaa callamtum min aljawaarixi, ayadan waxay ku jirtaa axkaamta ay la keliyowda suurat lmaa-ida. eyga rabaayad ma galaa, u galaa haddii eyga la tababaro oo cilmi la baro oo qaabka ugaarta uu barto, haddii marka uu wax soo ugaarto waa la cunayaa oo waa xalaal. aayaddan keliya qur-aanka dhan ku jirta. wamaa callamtum min aljawaarixi mukalibiina tucallimuunahuna mima callamakum allah fakuluu cuna mima amsakna calaykum, waxay idiin soo qabtaan oo idiin ugaartaan. ilahi subxana wa tacaala marka xataa eyga ama xayawaanaadka kuwa aqoonta leh wuxuu ka fadilay kuwa kale. marka cilmigu bini-aadanku wuu kala fadilaa, xataa xayawaankuu kala fadilaa. eyga aanan tarbiyeysneyn oo aanan aqoonta lahayn sida wax loo soo ugaarto, wuxuu soo ugaarta lama cuni karo. kan laakiin aqoonta leh waa la cunaya. fakuluu mima amsakna calaykum wadkuruu sma allah. kadib ilahay wuxuu ku xujisiiyey guurka. waxaa la guursanayaa gabdhaha muslimaadka ah oo dhoorsoon. alyawma uxila lakum alطayibaatu waطacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum waطacaamukum xilun lahum wاlmuxsanaatu min almu'minaati wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaab. cuntada waxaa cunaysaan cuntada idinka aad samaysataan ama cuntada dadka ahlu kitaabka ay sameeyaan. ayadana waa xalaal. ayaddaas waxay muhiim u tahay dadka jaaliyaadka oo muslimiinta ah oo ku nool reer galbeedka, yurub iyo austraaliya iyo canada iyo maraykan ku nool, oo intaa su-aalo cuntada iyo gowraca iyo la halmaala. dadkan sida cuthaymiin ibnu cuthaymiin raximahullah culamadiiba ay yidhaahdeen waa dad ahlu kitaaba oo kiristana. waxay kariyaan iyo cuntadooda iyo waa la cuni karaa ilaa maa uhila ligayri illaahi iyo wixii dee soo galaya aayaddii xurimat calaykum ay ka hadlaysay. kadib ilahi subxana wa tacala wuxuu yidhi wاطayibaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum ida aataytumuuhuna ujuurahun. kadib ilahi subxana wa tacala wuxuu galay weysada iyo tahaarada si lo isku taahiriyo. kadib ilahi subxana wa tacala wuxuu yidhi udkuruu nicmat allahi calaykum wamiihaaqahu aladii waathaqakum bihi id qultum samicnaa waatacnaa. waa aayad muhiba, yani xasuusnaada ilahi subxana wa tacala nicmadu uu idin siiyey. waxaa kaloo xasuusnaataan oo ka soo baxdaan heshiiska ilaahi subxaana wa tacala aad la gashaan. kadib ilahi subxana wa tacala wuxuu ku xujisay ya ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilahi shuhadaaa bilqist. waa cadaaladda. ayadana waa xukun axkaamta ilaahi subxaana wa tacaala ka mida, wuxuuna ka mid yahay weliba yani axkaamta islaamka ugu waaweyn iyo mabaadi'diisa iyo qawaaciddiisa. in la fuliyo oo qofka muslimka uu cadaalad la yimaado waxay tahay heshiiskii ilahi subxana wa tacaala aad la gashay o aad ka soo baxday. ilahi subxana wa tacaala marka qiimat lcadli suurat nisana wuu kaga soo sheekeeyey, waana kusoo faahfaahinay. aayaddan suurat lmaa-idana ilahi wuu keeno. suurat nisa ilahi subxana wa tacaala wuxuu yihi u cadaalad fala dadka aad jeceshihiin xataa walow calaa anfusikum, naftaada aw alwaalidayni walaqrabiina. dadkaasu ilahi subxana wa tacala yihi u cadaalad fala. aayaddan oo suurat lmaa-idanana qofka cadowgaaga ah ama wax idinka dhexeeyaan ama khilaafka ama muslin aan ahayn ayagana ha loo cadaalad falo. walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdilu. yani yaysan ku qaadin qofkan cadaawad aada u haysay iyo xumaato aada u qabtid inaad ka tagtid cadaaladii. icdiluu huwa aqrabu litaqwa. kadib ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu galay reer bani israa'iil iyo heshiiskii ilahi subxana wa tacaala uu la galay iyo si ay heshiiskii u burburiyeen. walaqad akhada allahu mihaaqa bani israa'iila wabacathnaa minhum 12 naqiiba. alla wuxuu yihi lain aqamtum الصalaata waaataytum الzakaata waaaamantum birusulii wacazartumuuhum waaqradtum allaha qardan xasana laukafirana cankum. haddaad la timaadaan iimaan, aad tukataan oo aad zakaysataan oo rususha ilaahay aad rumaysaan oo rususha ilaahay aad garab istaagtaan, ilaahay subxana wa tacaala janna idin gelinaya, dambi dhaafna wuu idin siinaya. waa heshiiskii ilaahay uu la galay. alla marka muxuu yihi fabima naqdihim miihaaqahum yani heshiiska ilahna way ka baxeen waana ku gaaloobeen maarata heshiiska ilahi subxaana wa tacaala. suurat nisana ilahi subxana wa tacala wuu kaga sheekeeyey wa kufrihim biaayaati illah wa qatlihim alanbiyaaa bigayri xaqin. nebiyo badan oo ilahi subxana wa tacala uu soo diray bay xaq darri ku dileen. ilahi subxana wa tacala marka wuxuu ku fadeexeeyey heshiiskii ay ka baxeen buu ilahi subxana wa tacala suurat lmaa'ida uga sheekeeyey.
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم كوي كريستن كاها كور أخذنا ميثاقهم هيغنا هشيس بان لقلنا لكن هشيس كما كسب بحين ويكون قالوا بين هشيس إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى سورة وسي وحو كل ما يستري أرنت ما سورة المائدة لو مقع دري يريل بني إسرائيل النبي عيسى كعد صدين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إلهي سبحانه وتعالى أويدي الله وحو يري إني منزلها عليكم وأن كسو دجنايا وإجريمنت إلهي ولقلي فمن يكفر بعد منكم قفكي كو قالوا به أما كذب قالوا به فإني معذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين إلهي سبحانه وتعالى وحو كسو قبقبي دعاء النبي عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إلهي سبحانه وتعالى وحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الله وحو كسو قبقبي الله ملك السماوات والأرض وما فيهن إلهي سبحانه وتعالى عرك يدولك وحا ودحيبا أسغا إلهي سبحانه وتعالى له أسغا ملكي وله أسغا إلهي سبحانه وتعالى مسؤولك أسغا إلهي سبحانه وتعالى دبره الله نوعاس حكمكيسا قاتا الله نوعاس noloshiina ku dhaqa wuxuu idin faray suuratu lmaa-ida intaasaan kusoo gabagabaynayna wa ilaa liqaa'in aakhar wassalaamu calaykum waraxmat ullah